بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وضع أرضيدا halkani waa Somali Academy waxaan insha Allah dib u bilaabi doonaa casharadeenii mathematics-ka oo in muddo ay naga kala istaagay balse hadda aynu insha Allah bidmillah kareem si fiican u bilaabi doono oo xiriir ah hadii la dhaxdo intan karantiinka lagu jirana insha Allah aynu si fiican uga faa'iideyn doono waqtigaasi markii hore waxaan soo wadnay casharada xagga base-keenu ka soo dhisaynay oo maaragtay fowanka iyo aljabrada ayaynu maaragtay ka soo dhisaynay wax badanna way naga caawin doontaa arintaasi oo hadda aynu arki doono hadii balse imika waxaan official u bilaabi doonaa casharada form 4ka maadaama asxaabta sii baxaysa ee form 4ka ardayda sii baxaysa aynu rabno inaynu taageerno hadii la dhaxdo oo aynu form 4ka ka saarno marka dhowr chapter ba sida caadiga form 4ka lagu qaataa chapterada form 4ka lagu qaato waxa kooka maxay calculus ba kooka marka calculus dad maqasho waxa soo hoos galaya differentiation-ki waxa soo hoos galaya integration-ki waxa soo hoos galaya limits-ki saddexdaas ayaa la isku raamaxay saddexdaas waxa la isku raahdaa calculus waxa kale oo jira oo iyadana lagu qaataa maxay statistics and probability kaasoo isaguna wada socdo oo ah maxay chapter mugle isaguna lagu qaato chapterka kale lagu qaato waxa weeyaan trigonometry trigonometry-ga oo isaguna chapter aad u ballaaran ah chapterka kale lagu qaatana waxa weeyaan complex ama waxa la dhaahdo imaginary numbers okay afarta chapter waaweyn ayaa maaragtay form 4ka lagu qaataa waxyaabaha prerequisite oo ah for example imika kale hadaynu calculus-ka kale eegino waxyaabaha prerequisite oo ah ay tahay inuu ardaygu hayo waxa kamid ah chapter-kii la oran jiray algebra chapter-kii algebrada la oran jiray marka algebrada inagu waan soo horeysiisanay sababta inuu soo horeysanay waxay ahayd some of them ayaa waxa looga baahanaya halkan inahaasaynu hadii la dhaxdo qaadan doonaa sida uu kala fudud yahay baynu soo kala horeysiin doonaa si ay maaragtay aan fahankaagu iyaga lumin oo adii la socon karto marka waxaynu ugu horeysiin doonaa insha Allah chapter-ka koowaad oo la dhaxdo calculus-ka saddexdan qaybood buu qaybsami doonaa mid baynu markaa u eegi doonaa casharadani waxay aad u anfacayaan boqolkiiba 70 waxay aad u anfacayaan ardayga soo dhigtay maaragtay form 4ka ku jira ay aad u anfacayaan laga tagmayo ardayga imika ku cusub tahay isagana wax uu ka fahmi doonaa insha Allah laakiin ardaygu inuu base leeyahay ayaa aad iyo aad u muhiim ah markaynu calculus-ka kala dhiganayno tusaale ahaan calculus-ka markaynu dhiganayno for example imika limits-ka oo kale tusaale ahaan imika limits-ka oo kale markaynu dhiganayno waxa prerequisite ah saynu hore soo sheegnay algebrada oo ardayga haddaanu algebradii garanaynin oo aanu si fiican u garanaynin limits-ku way ku adkaan doonaan aad bay uga adkaan doonaan marka waxaan isaga prerequisite uga dhignay maxay algebra waliba waxa muhiim si ah oo ardayga looga baahan yahay inuu aad u sii hayo wax la yiraahdo maxay indices-ka iyo wax la yiraahdo maxay equations-ka iyo wax la yiraahdo maxay expressions-ka marka inagu expressions-kana hore inuu soo dhiganay equations-kana hore inuu soo dhiganay marka waxaad moodaa inay si isku xidhan yihiin waxyaabaheennani marka expressions-ka qaar kood waa la factorize gareynay oo qaar factorizing bay ku imanayeen waxaad arki doontaa limits-ki oo aynu ku xalin doono by factorizing qaar kale oo expressions-ka kamida waxa lagu sameeyay expansion oo waa la fidinayay maaragtay practice-ki baa laga saaray qaar kale oo kamida waxaynu ku sameeynay maxay marka maaragtay laga hadlayo waxaynu ku sameeynay solving oo haday qaybtii equations oo kala noqoto marka factorization-ka iyo expansion-ka iyo solving-ka intuba waxay dib inooga anfici doonaan markaynu kuwan kala ku shaqeynayno indices-ku waxay si aad oo la xaleyn oo caawin doonaan markaynu qaadano qaybta calculus-ka kamid ah waliba la yiraahdo maxay differentiation-ka marka la yiraahdo oo ardayga aan maaragtay indices-ki si fiican u garanaynin hadii uu differentiation ka shaqeeyo la yiraahdo aad bay uga adkaanaysaa tusaalaha ugu yaraan ku siin kara waxa weeyaan 1/x⁴ hadaan ku raahdo u qor maxay in the form ax⁴n u qor hadaan ku raahdo waa inaad u qori kartaa marka hadii aanad kan form kan u bedeli kareynin ax⁴ n
aad bay kugu adkaanaysaa inaad maaragtay differentiationkii samayso oo ahaa maxay inaad powerka xagga hore kusoo dhufato na powerkana aad mid ka jarto. Marka waxaanu samayn doonaa haddii la dhahdo indexeskeenu ugu horeysiin doonaa oo maanta casharkeenu wuxuu aad u saarnaan doonaa oo maaragtay aynu xoogga saari doonaa indexeska si aynu hadhow si yaroo dardar leh ku jirno intan kale oo dhan. way markan indexeska leenahay bugaagta qaar waxay qoraan maxay exponents, qaar kale waxay qoraan maxay powers. marka haddaad index maqasho iyo haddaad exponent maqasho iyo haddaad power maqasho they all mean the same, isku macno unbay xambaarsan yihiin. marka for example waxaynu imika haysanaa x power n, okay, kaa waxaa la dhahdaa the power, kaas waa powerkii, kana waxaa la dhahdaa base. marka kaasi waa jibaarkii, kana waa salkii ama waa halkii ay ku fadhiday. macnaha ay intani xambaarsantayna waxa weeyaan x times n times waa x oo la isku dhuftay intaasoo jeer. for example haddii iminka aynu haysano x power 3 macnaheedu waxa weeyaan inaynu x isku dhufano 3 times, so x times x times x, so that's x cubic macnaheedu waxa weeyaan x times 3 times. for example imika haddaynu haysano 2 power 4 macnaheedu waxa weeyaan 2 times 4 times, okay, laba oo la isku dhuftay 4 jeer. marka waxaad ogaanaysaa this one waxaa la dhahdaa the base, kana waxaa la dhahdaa the power. powerkuna wuxuu inoo sheegaa inta jeer aynu baseka isku dhufanayno. ardayda qaar waxaa laga yaabaa inay dhahdaan 2 power 4 marka ugu inay dhahdaan 8 oo ay u qaataan 2 times 4, macnuhuna saas ma aha, waa 2 times 4 times waana 16, okay, waa 2 times 2 4 times 2 8 times 2 16. marka waxaynu imika soo define garanay the general meaning of an index ama power waxa looga jeedo. waxay leeyihiin rules bay leeyihiin. markaas rules of indices waxa la dhahdo xeerka koowaad waxa weeyaan the multiplication rule ama xeerka isku dhufashada. waxa uu leeyahay for example haddaynu haysano x power m waa number ama xaraf ku jibaaran number, okay, kana hadhow number bay noo noqon doonaa ama algebraic ha ahaado ama numeric ha ahaado. marka waxaan leenahay any number raised to the power of m, number kasta oo lagu jibaaray powerka m haddii lagu dhufto isla numberkii oo lagu jibaaray another power, okay, waa inay basesku isku mid ahaadaan. markaas haddii labadaas aynu aragno markaa caseka noocaas oo kale waxaynu odhanaynaa we add the powers, powerska waynu isku darsanaynaa. baseska mid baynu kasoo qaadanaynaa labada egas, labada powerna waynu isku geysanaynaa. that's multiplication rule, kaa waxaa la dhahaa markaa multiplication rule baa la dhahdaa, okay, that's multiplication rule. the second one waxa weeyaan x power m ama number ama xaraf ku jibaaran power haddii loo qaybiyo number ama xaraf ku jibaaran waa isla numberkii un. marka waxaynu had iyo jeer ka fikiraynaa inuu ilaalinaynaa inay baseskeenu isku mid ahaadaan. hadhow waxaynu arki doonaa iyagoo basesku kala duwan, laakiin now waxaynu assume garaynaynaa inay markasta basesku isku mid yihiin. marka waxaan leenahay haddii aad aragto x power m oo ku jibaaran x power n, haddii la isku qaybiyo labada base mid baa laga soo qaadanaya, powerskana waa la kala jaraya. marka waxaad ogaanaysaa mar kasta oo labada number la isku dhufto powerska waa la isku geynaya, mar kasta oo labada number la isku qaybiyo ama labada xaraf la isku qaybiyana powerska waa la kala jaraya. intaynaan xeerarka kusii soconin bal tusaale aynu eegno. for example siday tan u shaqaynayso, tusaale ahaan waxa imika la dhiibay eedoo kale waxaa la dhiibay x power 2 lagu dhuftay x power 3, okay, waa x square lagu dhuftay x cubic. kan waxaynu u akhrin doonaa square, kana waxaynu u akhrin doonaa cubic. taa macnaheedu waxa weeyaan x square waxaynu nidhi waa x times 2 times, okay, waa x oo laba jeer la isku dhuftay baynu nidhi. marka waa kan
times waxa lagu sii dhufanayaa x oo lagu dhuftay maxay x oo la isku dhuftay 3 jeer so x times another x times another x so how many times been x kii isku dhufanay we've multiplied 1 2 3 4 5 times been x kii markaa isku dhufanay waxaan leenahay this one waxay la mid tahay x power 5 or simply we add the powers zero fudud hadaynu u sheegnana the powers kun baynu isku dari lahayn tusaale ahaan oo kale haddii marka lagu dhahdo x power 5 loo qaybiyay x square taa macnaheedu waxa weeyaan x la isku dhuftay 5 jeer okay 1 2 3 4 5 x tasaan u qorayo iyo times ka saan u qorayo waa inaad kala aragtaa oo loo qaybiyay maxay x oo 2 jeer la isku dhuftay okay hadda doonto waxaan isticmaali karnaa halkii timeska dot baan isticmaali doonaa si maaragtay aan x iskaga kan khaldamin iyo number iyo timesku si aan iskaga kan khaldamin marka points-ga ayar waxaan u qaadanaa multiplication so x power 5 macnaheedu waxa weeyaan x oo 5 jeer la isku dhuftay x square na macnaheedu waxa weeyaan x oo 2 jeer la isku dhuftay taa maxaa dhacaya marka inay kaas iyo kaas isla baxaan kaasina isla baxaan waxay noo soo haray marka x oo 3 jeer la isku dhuftay ama x cubic oo macnaheedu tahay powers kii baynu kala jarnay so x power 5 minus x power 2 marka 5 iyo 2 baynu kala jarnay cubic bay noo soo haray haddaynu numeric qaadano tusaale ahaan oo kale waa anigoo dhaa 2 power 3 times let's say 2 power 5 oo macnaheedu tahay we add the powers basiska mid baynu ka soo qaadanaa waa 2 powers kana waynu isku daraynaa so 3 plus 5 that's 2 power 8 okay that's 2 power 8 waa labo aynu isku dhufanay maxay 8 jeer waxaanu arkaynaa labada xeer yar midna waxa la dhahdaa multiplication rule midna waxa la dhahdaa division rule oo ka hoosena isu qaybin buu inoo sheegayaa ka kalena isku dhufasho inoo sheegaya all right xeerka saddexaad aynu eegnaa waxa weeyaan rule number 3 waxa weeyaan x power 0 is equal to 1 so any number raised to the power of 0 is equal to 1 baa la dhahdaa number kasta oo lagu jibaaray 0 waxa uu la mid yahay 1 buu la mid yahay tusaale ahaan oo kale imika haddaynu nidhaahno tusaale ahaan x square loo qaybiyay x square taa macnaheedu waa maxay waxaynu samayn jirnay inaynu laba x isku dhufano xagga sare oo x square waa laba x oo la isku dhuftay xagga hoosena waa laba x oo la isku dhuftay marka waxa dhacaya haddaan kaayo ka isku qaybiyo waa 1 haddaan kaayo ka isku qaybiyana waa 1 whole 1 haddaan 1 u qaybiyana waa 1 that's why ay sidoo kale x square iyo x square haddaynu sii fidayn lahayn waxay noqon lahayd x square haddii loo qaybiyo another x square waxay noqon lahayd inaynu powerska kala jarno so ay noqoto maxay x power 0 so x power 0 is equal to 1 halkaasay markaa ka imanaysaa waa inaad saa ula socotaa way xeerka afraad aynu dhigana waxa weeyaan the power rule baa la dhahdaa for example waa x power m to the power of n waa imika iyadoo ku jibaaran number ayaa number kalena lagu sii jibaaraya marka waxay noqonaysaa inaan nidhaahno powerska ayaynu isku dhufanayna so waxaan leenahay x power m baynu haysanay to the power of n labada power baynu isku dhufanaynaa taasi macnaheedu tahay haddaynu example ka bixino tusaale ahaan for example imika haddaan idhaha 2 power 4 square oo macnaheedu tahay 2 lagu jibaaray 4 laba jeer isku dhufo marka waxa weeyaan 2 power 8 sababtoo ah powerska la isku dhufanaa weyn 4 iyo 2 ayaa la isku dhufanaa si kale haddaad u dhigto waxa weeyaan 2 times 4 times 2 times 4 times 2 times 4 times waa intan laba 4 jeer isku dhufo intood laba 4 jeer isku dhufato yani laba jeer isku sii dhufo haddana intaas oo laba jeer la isku dhufanay weeyaan 1 2 3 4 maxaa dhacaya 1 2 3 4 5 6 7 8 tuugi baynu 8 jeer isku dhufanay weeyaan macnaheedu tuugi baynu 8 jeer isku dhufanay marka waxaad arkaysaa haddaynu raahno labada power isku dhufo iyo haddaynu raahno 2 power 4 laba jeer isku dhufo waa same meaning bay soo baxaysaa 2 power 4 baa laba jeer isku dhufanay 2 power 4 waa maxay markaa macnaheedu waa inaan
laba afar jeer isku dhufano intaynu laba afar jeer isku dhufano ayaynu laba jeer isku sii dhufanayna laba jeer oo mid noocaas ah so 2 imsa jeer baynu isku dhufanay 8 jeer marka haddaynu habkan expanded ka ay la fidiyay raacnana waa ka haddii kalena si yar oo fudud oo simple waxaad samaynaysaa maxay labada power ayuun baad isku dhufanaysaa so that's xeerka afraad weeyaan xeerka shanaad aynu eegina waxa weeyaan x power negative number let's say x power negative n sidee looga shaqeynayaa kaas oo kale kaas waxa uu la mid yahay 1 over x power n okay marka markastood minus aragto arday waxaad kaga saaraysaa maxay 1 over x power n labada dhinacbana waa u shaqeynayaa haddaad kan haysato 1 over x power n kan baad dib ugu celinaysaa haddaad x power minus n haysatana kan baad dib ugu celinaysaa kaasina waxa uu ka imanayaa wixii la oran jiray x power minus 1 oo la mid ahayd 1 over x iyaduna marka general rule kaas la qaadanayaa markasta de powerkaagu 1 ma noqon karo 2 buu sometimes noqonayaa 3 4 iyo wixii ka badan salaajligeed waa inaad markaa kaga saartaa maxay 1 negative-ka 1 baad kaga saaraysaa x-kiiyo powerkeeda iyo positive-ana marka xagga hooseed keeni doontaa okay for example imika haddaan ku dhaho 2 power negative 3 this is equal to 1 over 2 power 3 okay taas maxay la mid tahay 2 power negative 3 haddaan haysano waxay la mid tahay 1 maadaama negative arka 1 baan kaga saaraya 2 iyo 3 oo positive ana xagga hooseen keeni doona so this is equal to 1 over 2 power 3 waa 2 times 3 times which is 8 okay marka 2 power negative 3 is also equal to 1 over 8 xeerka lixaad waa kanoo la sii fidiyay oo maaragtay jajab la geliyay weeyaan for example waa inagoo haysana x power m divided by n marka sidan oo kala haysato waxa weeyaan x-ka waxa laga saarayaa nth root oo macnaheedu tahay xididka n taas waxa u taagnaanaysaa xididka laga saarayo hadday laba tahay xididka laba jibaarane hadday saddex tahay xididka saddex jibaarane hadday afar tahay xididka afar jibaarane kanna waa lagu sii jibaaraya marka waxaan leenahay waa nth root of x power m into nt laga saaro x inta laga saaro xididkaas ayaa markaa m tana lagu jibaari doonaa waa anigoo ku dhahday imika tusaale ahaan 8 power 2 third okay 8 power 2 third haddii 8 lagu jibaaro 2 over 3 maxay soo bixi doontaa bal aynu ku apply garayna xeerkan ntna imika maxay noola mid tahay 3 mt-na 2 macnaheedu waxa weeyaan 8 waxaynu ka saaraynaa xididka saddex jibaarane labadana jawaabta soo baxda ayaynu ku jibaari doonaa marka waxaan leenahay the cubic root of 8 power 2 okay the cubic root of 8 power 2 marka cubic root-ka macnihiisu waa maxay waa kee numberka marka saddex jeer la isku dhufto 8 isiya exactly waa laba dee labadaas sii saraysana waan kusii jibaarayaa and 2 power 2 na waxa weeyaan 4 marka waxaad arkaysaa haddii isagoo powerkaaga uu jajab yahay lagugu jibaaro xidid baad markaa kaga saaraysaa kan mid ka yar baa jira oo maaragtay laga soo xigtay oo laga soo qaatay waxa weeyaan x power 1 over n kaasina waxa uu kula mid yahay the nth root of x okay marka haddii 1 uu isbedelo maaragtay number 1 ka weyn noqdana de m buu noqonayaa san baynu uga shaqeynaynaa haddii 1 ku yahayna de xididkaas unbaad ka saari doontaa x kaaga waxa kaloo jira xeerka sideedaad waxa uu odhanayaa a power m equal a power n haddaad haysato number iyo yani base iyo power lamida isla baseki oo lagu jibaaray power kale as long as ay basesku isku mid yihiin maadaama ay basesku isku mid yihiin the powersku way isleegaaneen so this is equal to tani waxa ay raacaysaa inay m to lamid tahay enter xeerkan waxaa loo baahdaa markaynu ka shaqeynayno equationska indiceska la xidhiidha ama jibaarada la xidhiidha halkaas waa n markaynu ka shaqeynayno isleegyada jibaarada ku taxalluqa this rule is very effective rulekani waa uu shaqeynaya markaa maxaan leenahay if haddii powersku are equal ay isleegyihiin then bases are also equal haddii ay jibaarku uu isleegaado hadduu jibaarku isleegaado yani salalkuna way isleegaaneen ama hooseyaashuna way isleegaaneen and vice versa
sidaa agsigeedu hadday dhacdana waad u qaadanaysaa oo macnaheedu tahay hadday powersku isla egaadaanna basiska isla eg hadday basisku isla egaadaanna powerska ayaa isla egaanaya marka bal waxaan kaaga tegi doonaa some exercise adigoo isticmaalaya xeerarkaas inaad ka shaqayn karto marka waxaan sameynaa kuwan soo socda waad simplify garaynaysaa xabadda koowaad eedu waxa weeyaan 24x power 4 divided by 8x squared xabadda b'du waxa weeyaan x power 7 times x power 3 xabadda cdu waxa weeyaan 8x squared power 4 xabadda d'du waxa weeyaan let's say 2x cubic to the power of -5 xabadda edu waxa weeyaan x negative power -3 times x power 7 f2 waxay noqon doontaa let's say 2y square a square power 4 marka balinaha yar isku soo day waa inoo xiisada dambe haddii la dhaxdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.